سلسلة حلعبيرة اللي نفسه بنو مشي كرتو اللي ذهب أفري وحصل جوه إن عرفتي بلا وقفني إلى بعدها أنا قياسته أنت ولا حديثي كل يسقال بقول يشنتي إلى كل يسقال بقول يسديدي اللي قاعد يسوحوها حل الأولى الصومالية ولي أن قبل وكرة قيمة حبها نوري حل أن قميص وبدها ذلك قوة فين حل أي صومالي إسكور قبتي وتدخل تحمل التري سفرها بالبركة صباحنا أي برا وسوق قال التري dalku dawladda xamalahayn sida darteedna Soomaalida tol waliba wuxuu lahaa madaxdiisa u gaarka alaad iyo nabadba guddoonka gabadh dambaysta ah iyaga ayaa laga sugtay dhinaca kale meelaha qaarkood waxa iyaguna ka dhisnaa maamullo sansan dawladeed lahaayo ilaa heer shisheeyaha ka madax bannaana kuwaasoo ay ka talin jireen boqorro iyo suldaano dalka u dhashayo madaxnimadoodu ay kala dhaxlid ku saleysnayd waxaa ka mid ahayd sadanadii hobyood iyo tii bari iyo tii haddii alla guurooya daladii iyo goobroontii afgooy waxaase intoodaasba ka awood badnaa kana magac dheeraa dhaqdhaqaaqii gobonnimo doonka ah ee daraawiisheed kaasoo dhidibada u aasay halgamaagii gabayaaga iyo aqoon-yahankaba ahaa sheekh maxamed cabdilla xasan oo sayid maxamed caanku ahaa wuxuu ahaa dhaqdhaqaaq aan qoloqolo ku dhisnaa jihaad diinta looga qayb helay awooddii maaraynta iyo maskaxdii weyneed sayidka ayaa suuro gelisay muddo dheer daraawiish inay gacanta sare geeska afrika ku yeelato dowlado waaweyn sida ingiriiskana ay u goojadayaan waxa uu xilligaani ku beegan yahay kolka taya ahaan markii ay maansada Soomaaliyeed ugu wanaagsanayd ee gabayada quruxda badan fariimaha la isugu tirin jiray waxaa noolaa koox maansayahana ah oo la wariyay dhammaantood inay dhasheen gugii caanka ah ee gobaysana la magac baxay loona badan yahay inuu ku aadan yahay sanadkii 1865 gugaas maansayahanada loogu abtiriyaa ama la sheegay in dhasheen ma yaray waxaana ka mid ahaa sayid maxamed cali dhuux iyo qamaan bulxan sababtii kolka ay silsiladan xalacbeera ku bilaabatay xilliyadaas waxaa bulshooyinkii Soomaaliyeed ee raacatada ahaa oo caada ahaa magac iyo awood siyaasadeed ninkii rabaaba inuu ku dadaalo sidoo kula xidhiidhi lahaa mid ka mid ah qoysaskii ka talin jiray maamuladaas aan carabka kusoo dhufanay haddaba misal ciideed ahaa oo la oran jiray Axmed Buraale waa ogaadeen oo waa reer Cabdillo waa reer magan warfaa ugaas magan waa ina Buraale Maxamed Nuur Caburiye sidaa la wada xusuusan yahay wuxuu ahaa nin gayga marka talin jiray oo keligii taliya ah oo keli talisnimo caan ku noqday Axmed Buraale wuxuu ku abtirsanayay kolka qoysaskii iyaguna deegaamadaas ka arrimin jiray markaasuu doonay inuu la xidhiidho reer Kennedy oo 60 sano muddo ku dhow gobolka Mudug magaalada Hobyood uga talin jiray yaadka iyo xaragada gabadha reerkooda loo walwaala ka soko markaas oo kale waxa uu ninka guurdoonka ahay sii kaxaysan jiray dhalinyaro iyo garmadow ay maadeereeyeen kuna tilmaaman kula joog wanaag haybad iyo iftihaamayntaba Axmed Buraale hidahaas kama uu ildoofin markuu Hobyood istaagayna waxaa hareer socday rag dharankooda lala afjabay oo gobonnimadoodu ay foolkooda iyo hubkoodaba ka muuqato raggaas ayaa waxaa ka mid ahaa nin lagu naanaysi jiray xalacbeere ha yeeshee magaciisa runta ahi uu ahaa Xuseen Casuur Cali silsiladani waxay kolka ku saabsan tahay kaftan ninkaa ku baxay iyada oo maansayahanada qaarkood ay hunguri weyni iyo cilweyni iyo hunguri xumo intaba ay ku tilmaamayaan qaar kalena ay ka daafacayaan kolka qaarkood inkastoo arrimo kalena lagu soo qaaday haddana ujeeddada silsiladda isaga ayaa tirdhexaad u ah isaga ayayna doodu ku socotaa kolka sidii caadada Soomaalidu ahayd nimankii dadabgalka ahaa ee ogaadeen ee doolle iyo ciid ka yimid Axmed Buraalena oo hor socday si wacan baa Hobyo loogu qabtay waxaa loo asteeyey guryo ay habeenkii ku hoydaan iyo geedo waaweyn oo ay maalinimada harsadaan halkaas ayaa lagu dhaqaalayn jiray muddadii uu wadahadalku u socday lagala xaajoonayay yaradkii ay wadeen iyo gashaantimaha reeraha midda ay doonayaan intay tahay markii Axmed Buraale gabadhii la siiyey ee Sodog Seediyaal iyo Sodohdiiba ay ismarteen xaragadiina lagu heshiiyey wax uu bixiyey markaa iyo wax uu ballan qaaday markaas ayay isaga iyo raggii la socday amba bax u faarumaysteen ha yeeshee waa meel wax laga wadaa haddiiba ma ay gadoomin Hobyo iyo xididkii dhexdiisa ayay toddobaadyo kale isaga sii nagaadeen maalintii dambe koox iyagii ka mid ah oo geedihii ay harsan jireen harsanaysa
ayaa halcadheere oo ku jiray waxaa alla afkiisa ka keenay war oon baanu u dhimanay yaa loo duceeyaayo reeraha noogu taga oo biyo nooga keena sow iyagu ma dhaadine waxaa geedka meel dhinaca ka fadhiyey oo wax ka harsanayay kura yar oo ka tirsanaa cidaha ay martida u ahaayeen kiibaa orod istaabtay oo odayadii cismaan maxamuud inta u tegay ku yidhi nimankii ogaadeen baan soo maray oo waxay lahaayeen oon baanu u dhimanay yaa reeraha biyo nooga keena mid ragga ku jiray odayaasha ah la oran jiray cali sharmaarke ayaa kolkaa kuragii wuxuu ku yidhi maandhow ninkii hadalkaa yidhi nimanka ma ka garanaysaa magaciisa ma taqaan wiilkii wuxuu yidhi magaciisa garan maayo waase ninka dheere aadka u casee quruxda badan ay halcadheere ku lahaayeen laakiin magaciisa kale anigu ma aqaan waxaa la yidhi halkaa ayaa cali sharmaarke gabay uga muuqday waa gabayga bilaabay silsiladda halcadheere waana gabayga keenay in ay gabayo badan oo jawaabi ay ka soo noqdaan cali sharmaarke waa sidaan soo sheegnay waa reer hobyood waa majeerteeno waa cismaan maxamuud oo baha yaquub waa qoyskii xukumay ama ka talin jiray hobyood midda kale wuxuu ahaa ninkii dhalay allah u naxariistay madaxweynihii labaad ee Soomaaliya Cabdirashiid Cali Sharmaarke marka aanu gabayada intaanu wadno waxaanu sheegi doonaa gabayaa kasta qolada uu dhashay iyo halka uu wax ka warmaynayo sidaa darteedna waa inaan lala yaabin haddii ay aanu sheegno qabiilka oo soo celcelina sababtu waxa weeye gabayga Soomaalida lama garan karayo haddii aan la sheegin cidda loo tirinayo iyo cidda tirisay xiriirka qabiiladeed ama xiriirka toleed oo ka dhaxeeya marka cali sharmaarke tixdiisaan soo socota ee bilowda silsiladda sidaan soo sheegay wuxuu ku faanayaa inay yihiin dad hodan oo ilaahay gacantooda wax geliyey oo iyaga uuna ay awood u leeyihiin halcadheere oo kale inay muddo dheer hayaan waa tixmaaga wuxuu yidhi nag yahay horyaalnimo ninkii loo huraanaye nag yahay horyaalnimo ninkii loo huraanaho nag yahay horyaalnimo ninkii loo huraanaye haybkayga waa laga hayaara ogaadeene awal baan hordhaaladkii noqdiyo hanadkii daaro awal baan hordhaaladkii noqdiyo hanadkii daaroode gobernimo inay hodantaho hibaadna loo siiyey isagoon hanti wadan daadiina nala horaynaynin halcadheere nimankii sannado hinjiranaho intaa ayaa tixdaan laga soo gaadhay sida muuqata waa tix gaaban si aad u culus waxaan muddo isweydiin jiray ma tahay niman marti ah oo haddana xidid ahay tix ay mudan yihiin waxaa sukay qaban waayey hadalka halac fududaantiisa iyo yaabbiya noo keena iyo tixda cali sharmaarke culayskeeda muddo haddaan saa ahaa ayaa waxay soo gaadhay sheekadan soo socota waxaa la sheegay axmed bulaale markii uu ragga urursanayay ee doonayay inuu hobyo tago raggii uu damcay inay raacaan waxaa ka mid ahaa nin gabayaaha la oran jiray ismaaciil qoorleexo ogaadeena hore cabdillaah oo maalin guuraho aad geyigaas caan uga ahaa ninkaas ayuu damcay inuu raaco oo uu ku sirtago ragga uu ku sirtagaayo uu ku darsado wuu ka diiday haddana uu ku soo noqday oo wuxuu ku hunguri geliyey geela yaradka ah ee kontonka halaad ah ee uu wado ee uu hubyo geyn doono marka uu bixiyo oo laga gudoomo waxaa loo soo celin doonaa 25 halaadoo magacooda la yidhaahdo ama hiddaha Soomaalida yarad sooran 25kaas baan waxaan kaa siinayaa buu ku yidhi 10 halaade ismaaciil qoorleexo in adeer uga raaco hubyo raaco gabadha ila doon ismaaciil qoorleexo wuu diidayo wuxuu yidhi geel nimankaa majeerteen la siiyey oo ka soo noqonaya aniga ima muuqda mana dhici doonto ilaah baa wax siiye waddada iyo haddii aan la kuudonayaa safarka iga daageli maaye meeshaa geel ka soo qaaday maaye waxaa la yidhi gabaygu tiriyo gabaygaa waxaa naga soo gaadhay haaneedka uma laabi karo geela hubayooday hurdaba waa ku keenaa ilaa haybe iyo laane haydaarto caafiba ma qaba waana hodankaasi habeenkan dhashaa ila socda halacahi waaba
ولين عافي اللي هذا كي قال لي يقينوا حوليها أنا يقول على قبصة وحوها بالي النسبة أتصبر متدارو ما أنا قد ما يقول سبعة كسرعون عليه حدين اللي جوري وتجي لا بقى على الموضوع كده لا بقى على الموضوع كحستة وهي بيجي بحجة ولا بقى على الموضوع وحين غلين تبقى يحلو لفت حركة استوى عليان ليه ترى كودي وحكيت لي markaasuu leeyahay ninkaasi waa hobyana ma tegin meel kale ma tegin ilaah baa si caafiyo ana ilaah baa siin kara marka hawkarka iyo waxa igu waday gadax halka waxa la yiri gabaygaas iyo hadalka qorleeh ayaa nimankan guurdoonka ah ee hobyo tegay Axmed Buraale horsocdo ka sii horeeyay ka ayaa cali sharmaarkay ka ayuu maqlay kaas ayuu ka xumaaday gabaygan uu tiriyay hadda uu tiriyay Caladeere iyo nimanka xiriirka ah uu kaga arsanayay ka hore oo leex ayaa leeyahay waana wax maanka gali kala sheeka maangal ah